xubnaha guddiga doorashada Puntland oo ka kooban 7 xubnood ayaa maanta la magacaabay waxaana fadhiga ansixinta joogay ku dhawaad 40 xildhibaan. Cabdirasaaq Xirsi Warsame kusimaha xogayaha guud ayaa akhriyay liiska xubnaha guddiga doorashada Puntland. xildhibaan Cali Axmed Saalax gudoomiye, xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab xubin, xildhibaan Cabdirasaaq Xasan Ciise xubin, xildhibaan Xaamud Ismaaciil Xirsi Abshir xubin, xildhibaan Cawil حسن داد حبين، حلبان حسين أحمد نور حبين، حلبان محمد فارح مير حبين. كوديغا doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland waxa kaalinaya kusimaha xogayaha guud ee golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdirasaaq Xiddig Warsame iyo xoghaynta guddiga Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa cod gacantaag ah geliyay guddiga iyagoona la ansixiyay guddigaasi. guddigii waad aragtaa waan leedin afriyay waa dadkii aanu isdinay hawshaas rag oo dhan waa ka bixi karaa waana ka maartay waana qaban karaa laakiin waa intii aanu aragnay inay nasiib yeelatay inagu ma inay mataliyaan anagoo dhan baa ah iyaga waxaan jeclaan lahaa hadday suurto insha allah aad nala qaadateen inaad gacanta u taagtaan si ay uga madax bannaanaadaan waajibaadkooda shaqo yaa qaba in guddida aynu soo magacoonay una xil saaray doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay noo soo diyaariyaan habraaceedii iyo waxalaale wixii ay u baahnayd oo hawshaasi ku fuli lahayd inay inoo qabtaan hawshaas yaa qaba in gacanta loo taago. Gudoomiyaha guddiga doorashada Puntland xildhibaan Cali Axmed Saalax ayaa akhriyay shuruudaha musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo ku-xigeenka Puntland. muwaadin kasta oo Puntland ah waa u furan tahay inuu u tartamo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka ee dastuuriga ah kuwaas oo kala ah ba inuu yahay muwaadin Puntland ah muslim ah ku dhaqma diinta islaamka miyirkiisu dhan yahay da'diisu aanay ka yarayn 40 sano qabin xaas ajnabi ah inta uu xilka hayana aan guursan doonin xaas ajnabi ah ta inuu leeyahay tacliin sare waayo aragnimo hogaamineed aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed dalkana ku sugnaa 2 sano ee ugu dambeysay ja inaan xuquuqdiisa muwaadinimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee ugu dambeysay inuusan hore u gelin khiyaamo qaran ama ku xadgudbin xuquuqda bani aadamka. 2 musharaxiinta jagada madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka waxay ka iman karaan golaha wakiilada iyo dadweynahaba haddii xubin ka mid ah golaha wakiilada loo doorto madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeen ku tartamo wuxuu banaynayaa xubnimadii golaha wakiilada waxaana lagu soo xulayaa bedelkiisii habkii uu ku yimi kii hore. musharax waliba waa inuu u soo gudbiyo codsigiisa iyo taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa guddiga doorashada laga bilaabo Sabti 5 bisha 1 2019 saacadu markay tahay 12 duhurnimo waxayna ku egtahay qabashada dukumentiga codsayadu 6 bisha 1 2019 saacadu markay tahay 4 galabnimo. sharaxa madaxweynaha waa inuu bixiyo lacag diiwaangelinta oo dhan $20,000 madaxweyne ku-xigeenkana waa inuu bixiyo $10,000 waxaana lagala xiriirayaa maamulka golaha wakiilada. musharax walba waxa uu saxiixayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqadda ay soo diyaarinayaan guddiga doorashada oo ah in musharaxiintu ku qancayaan natiijada doorashada. musharaxii saxiixi waaye qoraalka ku xusan farqadda 6aad waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa. musharax waliba waa inuu buuxiyaa shuruudaha kor ku xusan waxaa reeban musharax isu sharaxay xilka madaxweyne inuu isu sharaxo madaxweyne ku-xigeen. si kastaba ahaatee magacaabista guddigan waxay imaanaysaa iyadoo 8 Janawari oo maalin Talaadaha ku beegan loo ballansan yahay in ay halkan ka qabsoonto doorasho si loo doorto madaxweyne iyo ku-xigeen. Farax Maxamed Khaliif Farax Yemani wararka warbaahinta SBC Garowe.